in wax la sheego waxa ka fiican in wax la hagaajiyo ama sidii looga bixi lahaa falankeeda la qabto haddaad sugaysaan idinku maalinta gabadhiina amarku ku dhaco oo gabadhiina amarku helo haddaad sugaysaan naag walba carruur waa haysataa ila tahay ama gabadheeda amar ku dhaco ama wiilkeeda amar ku dhaco haddaad sugaysaan maalinta caasho kale saas wax ugu dhacaan baad wada ooyeysaan sida ari weer galay waaq hadhowna wada aamusaysiin nimankii waa la hayaabaa la sheegaya garow waa la keenay way joogaan baa lalahaa laakiin waa wax aan in laga digtoonaado loo baahan yahay gabadha caasho waa saqiir waana dhimatay ilaahay baana doorsaday laakiin 12 sano lagu farxumeeyay dilka mooyaane anigana 6 sano laygu farxumeeyay waxaan idin sheegayeen waxaas inay maalin walba dhacaan ama dhici doonaan baan idin sheegayay wixii laygu caayayay oo adqaarkiin reemaha iigu wadateen oo ii waaleyseen u leedahiin mataqaanaayt islaanta waalano habarta waalano kan waalano marka maanta wax walba u jeedaan intaan anigu hadlay wax badan baad aragteen marka qof walba laab la kac inta iska deysid caasho waa dhimatay qof dhintayna dee waxba idin kama baahan ayada dambi baa laga galay wax kastoo lagu sameeyay waa dhimatay teedii bayna ahayd teedii baana ilaahay baana ka haystay so cadownimada intaas aragtay loo geystay hadiiba ilaahay adduunkan ka kaxiyay ayada naga fiican so ayadaaba idoo saqiira oo aan dambi galin inta waliba dambi laga galay teedii dhamaata laakiin dadka maanta qiira jabaanka u ooyahayo ordaayo waxaad u oydaa sidii wax looga qaban lahaa see wax looga qaban karaa shalay soo ma ahayntaan lahaa waxaasaa igu dhacay maxay caasho uga duwan tahay maama milyan oo dilka ahayn caasho maanta dhagxumo ma qabto teedii baa dhamaatay waa la fuulay waa dhimatay laakiin anigu maxaan qabaa waxaas lagu sameeyana waa la igu sameeyay dhagxumana waa qabaayo caydiinaan qabaa maalin walba inta aniga ila midka ahayo oo maanta dhibkaas qabta hadday sheegtaana waxay qabayaan dhagxumada aan qabo kale qabayaan marka kolley haddaan waxaan laga kicin oon laga hortaginin waxa weeye wax ka badan baa imaanaya caasho ilaahay baa abuurtay waxba uma qaban kartaan waxba uma tari kartaan waxaad siisaana wax ku fali mayso qabrigeedii bay ka gashay ilaaheedii abuurtay bay aaday ayadoo waliba saqiir ah oo la dulmiyey oo la dilay oo la dhibaateeyay oo la silciyay ilaahay aadi marka annagoo nala soo dulmiyey nala soo dhibaateeyay baana ilaahayna na oofsanin haddana adduunka markaan idinku sheegnana intaad aragto dhib aad noo geysateen marka kuwa hadda dambe oo imaan doona dhibaatada ka hor istaaga oo isku duubnaada oo israaca intaa sameeya laakiin qiira jabaan iyo dhaqaalaan u aruurinaya caasho waxba idinkama baahna kuwa maanta magaaladan cunug yaroo hadda maxaa la lahaa 2 sano jirta lagu fuulo hadda dhimatay baa la lahaa iyadana oo u dhimatay marka waxa weeye mise waa ma qaan anyway maalin walbay dhacdaa maalin walbay dhacaysa waana dhici doontaa maalin walbay dhacdaa waana dhici doontaa marka kolley anigu albaabkan furay faa'iidadiisa waa hayaayo wataasaa maalin walbaba 6 nin iyo 5 nin iyo ay gabdhaha yarka u fuulayaan habraha la fuulayo wax kasta oo banaanka la keenayo anigu alxamdulillah anigu waa guuleystay idinkana waxaan idin rajaynayaa inaad inta beenbeenta iska daysaan naagta aniga ay caayayso igu caayaysay habarta waal maxay tiri abtagay baa waxa igu sameeyay naagta waal maxay tiri waa layfo naagta waal maxay tiri saas la igu sameeyay habarti waa la dariiqada halaqada badnayd ku soo wada xareeyay nina maxaa ugu ooyeysin ma dhahdaan gabadha waalan waa la dilay ma dhahdaan ilaa aniga waa ilahaydeen soo waxa idin sheegaya wax badan baa idinka khaldane u kaca dadkeena oo dadkeena caawiya qofkii ana idinka waayay inaad caawisaan inta ay caawisana waa fiyo waa in yar wari caawiya warsaani la qabta wari hayliya wari kaneeya meeqa maskiinan caawin lahayn wax u qaban lahayn marka waxa waaye ilaahay baa wax caawiya ilaahay baana dadka wax ku tara ilaahay baana dadka wax siiya aadanana wax ma bixiyo wix ilaahay ka siiyana wax ilaahay kaaga soo qaaday inta wax igu tartay ama inta ay caawisayna aad baad u mahadsantihiin inta rabta hadda inay soo caawiso i weydiinaysay markaan tagayeen awal waxaan rabay inaan akoon furo marka akoonkii waqti baaba ka sokeeyo wax la'aana waa iska jirtaa qofkii rabo xawaalada doontid oo garow waa iigu soo dir
waa haddii aad wax bixinaysid. haddaadan wax bixinaynin cayda iska daayaya, darada iyo afxumada iska joojiya. intaas anigu idinkula dardaarmayaa. caasho midda ku dhacday kuwa ka badanna waad arki doontaan, kuwa ka badan waad arki doontaan. marka hadda maanta tanaa idinku cusub, gabadha la fuulay oo la dilay. Faadimo yar bay 2017 tii inta la fuulay u dhimatay fulnin. haye aawe ninkii fuulay oo waxeeyey maxaa looga hadli waayey, loo xiri waayey, maxaa loo waxayn waayey, maxaa loo dili waayey? aniga waxaan joogaa maama Garoowe waan joogaa, Puntland baan joogaa, magaalo madaxdiisa Garoowe. waa caafimaad qabaa, waa ladnahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. alaabtii waa la ii diyaariyey, wixii waa la ii waxeeyey. kole waxaan usoo kacay wada ogtihiin kulligeen oo dhan. alxamdulilah waan sugayaa insha allah. maanta ay ahayd inaan hawsha la qabto, laakiin xoogaa dib baa loo dhigay. berri baa imaaqa inay noqon doonto. daalna waa igu jiray, lugaha i bararnaa, marka xoogaa hawlo kalena waa iska jireen. marka kulligeen oo dhan waxaan idinka tegayaa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash. meelaad joogtaanna ogaada in waxaan iyo wax ka daran ay dhici doonaan. qaar baa hadda dhahaya habartii waana tuugsanaysaa, habartu waa idin tuugsanaysaa. habartu waa victim, habartu waa hooyadii victimka. marka habartu waa idin tuugsanaysaa soo ma ahan. waxaa waaye maxaa casho ugu ooyeysaan haddaad victimka aad maaragta aydnaan kala jeclayn, haddaydna ems u naxaynin maxaa casho ugu ooyeysiin? so casho lama soo saarin haddaan anigu hadli lahayni, waa la qarin lahaa, waana lala aamusi lahaa. yaa dhowmada banaanka in lasoo dhiga ems baa keentay. gabadhii la fuuliyo wiilkii la fuulaba in banaanka la keeno. so anigu dariiqa aan furay haraqyada badnaa oo aan shalay idin baray baad hadda waxaa ka taagan tihiin, ma aragta. anyway meeqa saac bay idiin taha reer Maraykan? meeqa saac bay idiin taha reer Minnesota? meeqa saac bay idiin tahay reer Toronto? meeqa saac bay idiin taha? intaas aan rabaa inaan ogaado. saacadahaasaan wax ku kala gartaa markaan maqlo. marka anyway meel kastaad joogtaanba, kolley gabdhihii dumarlaanoo aan aqaanay ma arko, laakiin gabdho badan baa ka buuxa meesha iyo wiilalba waa ku jirtaan bay ila tahay. igu salaama gabdhaha kalena, kolley cajalkaanay dhegaysan doonaan. waxaa idinka tegayaa intaas iyo nabadgelyo. annaga hadda waa noo galab, casar baa la tukanayay 7:15 miya idinka idiin tahay? annagana waa maaqaan 4 galabnimo meelahaas iyo maaqaan waxay tahay. waan galab, casar baa hadda la tukanayay. marka alxamdulilah meel kastaad joogtaanba waxaan idin leeyahay caafimaad iyo cimri dheer iyo barwaaqo. safar salaamo. muqdisho waa soo maray, eeraboorkeedaan soo maray, kuma deganin, laakiin diyaaradan ku jiray in yar baan taagnayn. kabacdi maalintaan kasoo gudbay halkaan aan imidna habeenkii qarax baaba ka dhacayba. intii ku dhimatayna allaha u gargaaro. marka waxa waaye dhibaato unbaa meel walbaba iska taalla. soomaali ayadaa is xaraynaysa, ayadaa is nicib, ayadaa is xabaalaysa. kuwa wax xirxiraya anigana mingiskaygaas laga yaabaa shirig bay samaynaysaa, mingis bay tumaysaa. anigu qofna ma dilinin, cidna ma dilaayo, laakiin mingis waa tumaya. dadkaan shifada ku ag wareegayowna walla inaynaan shifo ku caafimaadaynin. qof walbow tii hooyadaa waa dabqaad kuu gelisay iska soo xaadir meelaha mingiska la isaga tuuro. information haddaad u baahan tihiinna anaa idiin soo dhigi doona informationkiisa. laakiin waxaan idiin sheegayaa mataqaanaa shifadan laydinkula wareegayo qur-aan lagu aqriyo. jinku waa jiraa, ilaahay baa abuuray, dadkana wuu dilaa, dadka wuu galaa. ishu way jirtaa, isha dadka inay isha gasho way jirtaa. sixirku waa jiraa. marka wax kastaba weygii loo maraa unbaa lala aadaa. nimankan ceejiye iyo rusheeye iyo boqoojiye iyo shifoole iyo shaydaan iyo bahalkii kulligood lacag bay wada raadinayaan. kulligood lacag bay raadinayaan. waxba yaan barayn waash laydinku dhigan. kulligood lacag bay raadinayaan. haddaad inkirtaanna sida ms kastuumaheeda caddaa suuqa u wareejiyo walla kastuumayaashiina suuqa u wareejin. anugu kayga waaba dhaqnaayo kuwii noo baara leh. marka intaasaan anugu idiin sheegayaa. mingis anigu inkiri maayo. kiraad intii hore ay igu filan iyo dhibaato. waxaa weeyaan barwaaqadii baa inta iga badatay baan alaabtiisa tuurtuuray, markaasuu baallaha iga rifa. maantana Garoowe keenan. Garoowe ka shidan tahay gadhe. so haddaan internetka ii soo baxay maanta. insha allah hadda wixii ka dambeeyay waa idiin soo galgali doonaa. haddii mingiskaas la iga tumana free baan xoogaa heli doonaa time ah. quraanka daawo ka fiican iyo quraanka daawo ku xirmidna anigu kuma weydiinin. maana wiiftay umooyinka sharmutooyinka ayaa wax dambaa soo qori.
ayaa maqlaysa naagta ummada sheeganaysa firqaya soo qora magacaaga anu quraanka maan adid quraanka naga ma xigtida qaaxa ku dishay adiga hooyadaaba dhila yahay silka weyn leh ha soo qorin meesha adoo magacaaga aan sheegano sharmuutay ay qarsanaysa ha ku soo qorin wax dambe intaqaana page-kan naag magaceeda qarsanaysa maxay tahay naag baa masawaanin waxaan la hadlaayay naag baa carab tahay meeshan waxa ku soo galiyay meesha carab ma lahe firqayahay quraanka ilaahay daawo ka quraanka ilaahay daawadiisa anagu diidnay kuwa shabaabka ay wax qarxinayay kamid taha aabaha wasi shabaab baa qaba caruuraha qarxiyo caruuraha laayo oo naagaha dilo oo wadanka guba intaas ka tirin shifar inta siisan dadka daawo dhacday ku daldalay iyo daawageeda laga soo gooyo been siiyo naag waxay sanaysaa aniga qoraal iyo mas qori kartaba naag la dhahana Facebook meeshan yaama loo ogolaanin dumarland naag walba sharciga ku joogta wadanka magaceeda ku soo gasho wax la yiraahdo ma maqli karno ummada wasi magaceedi firqada sheeganaysa marka waxa idin sheegaya edab darra naagti meeshan la soo saas ii saaran yahay saas aan carshaynaya markaas wallahi adoo britiger soo goosanayo tuugsanaya lagu arkaya firqayahay quraanka ilaahay baa anagu daawadiisa diidnay jin baa iska tumaynaa jin ya baha hey war hooya baha hey war hooya beena balla idin ka rifaya naagta migiskiya fariis soo gashata quraanka ilaahay qofna kama xigtaan quraanka ilaahay baa iska leh qofkii isku daaweynayo qof kale waxa weeyaan laga xiga male anaa ku caayaya dhila yahay hadda runta ku sheegayay ummada sheeganaysa عاوية ناقها وذا الشيء قطعي فريقوين كايو كيمد انتقانايد أخوانك كيمد ما أرك كرنا أنا أخوان ما أرك كرنا أنا وهابي ما أرك كرنا ورد كين وصي استقدق ناق وهابي كسو جدا ماشان مسوق لي كرتي كدع اسكو سوق لينا دمرلان لقى ما أرك كرو كنت على يدين شيء جاي دمرلان ناق وهابي هم مسوق لي كرتو ناق أنا مقعد وحين يا لقى أكسب تقرين أنا كل فيسبوك والله بناق أنا مقعد وذر أنا كأركرين واي because ما مقال كرو بلا يكون يسوي ذا واي قبحدي هاي waxaan ku sheegaya waxa idin sheegaya quraanka ilaahay waxaad moodaan inaan gaalanahay quraanka noo tilmaamaya waa idin salaamaya waxaan qabno qalbiga ahayn ba alla ku saari ma fahminin caafimaadkii baa ka batay cudurka ka badan doona dhilayahay waxa weeye marka gabar walba ay waxaad qabsataa dantaada meeshaan intaad farax xun qaadaano ma dhiiqa wax ku dadka ku soo mataqaana common xuno meel ka yimid idinkoo wada waalan oo wada mental illness wada qaba ku soo qoraal yar oo dad cirka maraya balaayada ay qabaan haydi raacdo naagtaas haddeeraan wallahi sawirkaa qaadaya haddaana lagaa baloogaya dumarlaan haddii lagu daayo ay dhalaaman haddii dumarlaan lagu daayo oo aad dib dambe u soo gashto waxbaa ka soo qosli haddeeraan wallahi inta screenshot ka qaadan hadda gabdhaha u diraya markaas lagaa baloogaya firqayahay inaad ku jireen meesha aniga naag xuno wahaabiyada meeshan insa iigu jireen awowgiina 15aad wasi adduunka wahaabiba orod aad aabaha baa qarxiyay miya mise ninkaaga baa qarxiyay xamar hadda mise adaa lacagta lagu qarxiyay diray markaas ay minkis ku soo agwareegayaan iyo qof xanuunkiisa iyo qof cudurkiisa ku soo agwareegayaan waxa weeyaan ummadaas meesha laga tooro kala gabdhaha dhageysanaya walaadan ku jireen meeshan walla inaadan dumarlaan ku jireenin magac inaad bedelatid magacaaga rasmiga sheegatay ma sheegin naagta halkan common la soo gashana meelaha kale oo dhan facebookayga inta soo gashaan common caya la soo gala okay weeye laakiin dumarlaan wallahi inaydan common afxuma ku soo qori karin arwir inaydan ku dhicinin waaga la idin baahnaan jirina ma ahan ilaahay baa anaga wax la siiya laakiin أول بفايدة اللي يذكر قبل جرين هذا أنا كل قد وحي كنت معيها وقارين وربي وذرادنا يعني حسرت السلام عليا بلايا كل في ست مضح على قبت ورنجني قال لك وقلتك ورنجني قال لك وقلتك عذر قال لك وقلت قال والي أنتو قلت يا حرورت بكا قادي صدق إيه والي كو والي أبها وص كو حدين شيء جاية يعني تاس موجودة إيه داي أنا قتاس ناقد الله دا حابة يا MMS علاقة ويا علاقة MMS والله أويا شو ذي بفرديه يبلا يطلع أضيع كاش دان طاي فرقية هاي ما نكرادنا كاش الله يدون طال ما أنت هاي يا مرة بشيطان لان ما يصير كذا إن الله أنا مرة بتنحاول كصوت دانت
haddana lagaa tuuraya sharmutadu dhashay adigoo daawo raadinayana waad ii imaan doontaa qabxad yahay allaa waaridkaa ku yaali anyway waa idin salaamayaa rabbi waxaan kaaga baryay jinkuwa wuu isdhaamaya gaal waaliya ilahay inuu xirada kuu soo geliyo gurigaaga iyo ninkaaga iyo caruurtaada iyo siilkaaga iyo naasahaagaba inuu galo baan rabbi kuu weydiiyey sidoo maryaha iiga furtay intuu ku waalo suuq adoo ordaya inuu ku arko taasaan alle kuu weydiiyey so waa idin salaamayaa dhiladu dhashay ha laga tuuro meesha aabeed wastada ah aawa gabdhihii dumarlaandiiska ahaa so waxaa idiin sheegaya waa idin salaamayaa waa idin jeclahay meel kastaad joogtaanba fariiqadaas xuntaa wadkeeday soo doonatay caafimaadkaa uga daray laakiin cudurkeeda annaga ogaan doonay anaa ogaan doontaan cudurkeeda wacd alladan saa ku caafimaadaynin iyo wacd rasuul yaa waxaa waaye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meeshaan cudurkeeda xoogaa waa kulul yahay saasna uma kulula wallaahi waa iska normal dadka bari kasoo baxan waa iska soo xagaa baxeen magaalada waa magaalo qurux badan oo magaalo degan insha allah kole inta soo faar intaan ka arkay aniga wixii hayaba horta iga hareen ayaday raaceen aad baa qandha ii hayso qandhadeedii oo dhan iyo wixii hayayba ayaday raaceen gurigaagay ka shidan tahay yaa gurigaagay bay ka shidan tahay farxad iyo barwaaqadaad ku jirtay bar inaad ku jirtay in kale aan ogaano soo waxaan kuu sheegaya rabbi baan kuu baryay yaa inay kaa dulshidnaato wadaadadii reer fuqbaraaliya reer faarxaadan iyo mingiska isaaran inuu korkaaga alla ka shubaan baan alla kaaga baryay korkaaga in ilaahay ka shubo yaa dhilo marka waa idin salaamayaa waa idin jecelahay meel kastaad joogtaanba waxaan idin leeyahay caafimaad ku noolaada anigu xilligaan oo kale waa xilliyada wax layga dhexlo waa xilliyada jinka layga dhexlo weeye naagtii edab darre halkaan la soo aadaay adigay kaa shidan taha aniga waxba iga daadaadanaya marka waxaa iga daadaadanaya guro adoo barwaaqo ku jira adaa isoo doontay hadhow don't cry alla saasaan moodayo galabkaasaa lay dafay subaxaasaa lay dafay ana galab bay ii joogtaa adna subax bay kuu joogtahay ciyaarina waa galin dambe we will see inaad kuwaas is aragtaan iyo in kale anaa ku tusi doono wala inaadan diinna iga badinin qur-aanna iga badin akhriskiis anigana waa kuwiisa anigu ii galaayay adkaarta iyo khayrka aan kusoo galay iyo social media waxaan kusoo gadan adiga iyo hooyadaaba inaysan aqoonin kufaarad dhashayo waxaa tahay oo wahaabiyada anyway waxaas qashinka social media ha laga nadiifiyo dumarlaan ha laga guro waana idin salaamayaa naagtaani ayadaa kafanteeda soo qaadatay isma arkaynay ku tiriyay bar inaan is aragnay in kale anaa ku tusi doonay kolley qofku yaqaano unbaa iisoo sheegi doona anaa ku tusi doona anigu kolley cudurka ihayay wallaahi qandha i hayso aniga dhididka xataa waa iga ba-ay soo ma aragtaan so halkaas waxaa ii yaalla ma aragta halkaas waxaa ii yaalla soo ma aragta waa duubkaygii wakaasaa duubkaygi aniga marka qalaqad halkaas taagan oo gaal waaliya halkaas mataqaana ay ta usoo shaqaystay oo inaan asaga qaadan doono iyo asaga aana ka warqabinin baa soo doonat soo maaha golihii halkaas ii saaran yahay sariirtaa la iisoo kordhiga inaan halkaas ka daawado soo ma aragtaan meel ii daadan yahay soo ma aragtid marka barwaaqadii baa kaa badatay handikaabad baa taha kow marka nimcadii baa kaa badatay nimcadii baa inta kaa badatay kaa daadaadanaysaa yaa marka we will see ku salaamayaa caafimaadka uga darayda diinna inay iga badiso 14 boqolkaan dhameeyey naqtiinkiisina subxaan baan ku gaaray kowdhe marka dad quraan iga badisid iyo haddii kale adkaartaan aqaana iyo diintaan aqaanana ma taqaanid umma inta lagu yiraa jilbaab lagu xira kowdhe wahaabiyad xuna wahaabiyad dhashaa taha firqa ah marka xaliima joodari barwaaqada anaa ku tusi doona kaa daadaatay in kale wakaas aniga ka duubkay aniga ma ujeedaa inaana meel cidlaa jiifin sariirtayda duubkayga la iisoo korsaara ma aragtaa farta cabdi I love you naagtaas ummadaa farta cabdi hadda farta tuur naagtaas sihaan miyaa la dhahaa naagtaas hadda tuur fartuun lifeka intaad ku jirtid tuur naagtaas blogna ugu dar dhilada oo dhilada dhashay iina soo dir waxa ay tahay ama masawirkeeda iiga soo dhexraadi iina soo dir aniga wakaa duubkaygi ma ujeedaa ma aragtaa inuu duubkaygi yahay